maantay waa labadii bisha December 2013 رئيس وزراء هورا عبد الفارح شردون ساعد وشرح وتاغن qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya asaasi inuu leeyahay rajada rajiimka xukunka iska fadhiya ee Jubaland abihi hurdada ee lagu xasuusto mooshinkii looga ceyriyay xilka intii uu hayay talada labaad ee ugu sareysa dalka madaxii masuqa ee xukuumadda qabyo taasoo sababtay in dhiisha dhankiisa uu ka dhaansaday looga ceyriyay xilka bishii tobnaad sanadkii 2012 ayaa ra'iisul wasaaraha loo magacaabay xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud hal sano kadib ra'iisul wasaare Saacid ayaa xilka baneeyay kaasoo codka kalsoonida ay kala laabteen baarlamaanka xilgaasi jiray kadib markii ra'iisul wasaare Saacid uu ka soo horjeestay isku shaandheyn uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku sameeyay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa jiray ismaandhaafiya oo u dhaxeeyay aniga iyo madaxweynaha khilaafaadkan oo xoogaystay ayaa sabab u ahaa in ra'iisul wasaaruhu ka soo horjeestay isku shaandheyntii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku sameeyay golaha wasiirada xilgaasi madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilgaasi ku andacooday in ra'iisul wasaaraha uu ka arkay caajis iyo hurdo fara badan taasoo aan looga baahnayn shaqada ra'iisul wasaaraha iyadoo ugu dambeyn golaha baarlamaanka ay codka kalsoonida kala noqdeen ra'iisul wasaare Saacid رئيس وزراء ساعد ayaa lagu xasuustaa intii uu xilka joogay in markaas uu seetada u dheereeyay rajiimka xukunka iska haysta maamulka Jubaland ee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sidoo kalena uu wax talaabo ka qaadeen xilligii ay socotay xasuuqa ba'an ee shacabka Kismaayo waxa laga yaabi karaa an bogaadinayna gacanna ka geysan doona maamulka ku meel gaarka meesha laga yidhahayo inay ka soo baxdo dawlad goboleedka Jubaland ay ku taalo waxay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ahna xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland ay ka socotay xasuuq dareed ka dhana shacabka Kismaayo taas oo geysanaya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ra'iisul wasaaruhu waxa uu xilligaasi daadinayay maamulka Jubaland ee uu xukunka u hayay rajiimka Axmed Madoobe isagoo haba yaraatay wax ficil ka sameeynin xasuuq dareedkii loo geysanayay shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo 10 years later 12 sano kadib ra'iisul wasaare Saacid ayaa doonayo qabashada xilka ugu sareeya dawladda federaalka Soomaaliya waana musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ee 2027 isagoo markan lacag wali ah ku bixinaya musharaxnimadiisa si loo boonbooniyo dadkana uu isaga gado laakiin taariikhda madow iyo mahadooyinka uu reebay ra'iisul wasaare Saacid ayaan ahayn mid ka go'ay doonto dhagaha shacabka Soomaaliyeed